ugu jira dhimasho dhaawac ayaa ka dhacay magaalada Dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka Galmudug. qaraxa waxa uu ka dhacay afaafka hore ee xarun shirarka lagu qabto oo ku taala magaalada Dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka Galmudug. qaraxa ayaa la sheegay in loo maleynayo sida laamaha amnigu ay xaqiijiyeen inuu ahaa mid dhulka lagu aasay oo ah miinada dhulka lagu aaso taasoo sababtay inay qaraxdo kadibna ay waxyeello soo gaarsiiso dad ku sugnaa maqaayadan sidaas uga fogeyn goobta uu qaraxu ka dhacay. wasiir ku-xigeenka amniga dowlad goboleedka Galmudug ayaa ka hadlaya qaraxaas khasaaraha ka dhashay iyo sidoo kale qarax kaleete oo ciidamada amniga dowlad goboleedka Galmudug ay fashiliyeen sidii hadalka u dhigeen saraakiisha amniga dowlad goboleedka Galmudug iyo wasaaradda amniga Galmudug. ciidamada ammaanka dowlad goboleedka Galmudug ayaa heegan sare la galiyay ayagoo iminka howlgallo ballaaran ka sameynaya magaalada Dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka Galmudug. howlgalladuna waxa ay yihiin kuwa guri loo baarayo magaalada Dhuusamareeb sida uu mar kale xaqiijinayo wasiir ku-xigeenka amniga dowlad goboleedka Galmudug Mahad Xasan Maxamed. أمي ماذا أجيال أولنا أدواتك حتى لو الفيديو الجباري ما ودين كمران صوتنا كلها عمرا وآدنا لك يعني نويا مباريخ لنوان ونا إلى خلق اليوم هيا لي أدي هذا قرح الودي خلي يعني ستوسي سكو قرحين عيين أرسل أنا قرحا ومد مارتي يوغل قلني أمني أنه لنا أتكينا من الجار بابا إلا أنا أمني ودفاحو كويكي تغمها فالله رمضان asagoo sii hadlaya wasiir ku-xigeenka amniga dowlad goboleedka Galmudug ayuu sheegay in gacanta lagu dhigay hal ruux oo looga shakisan yahay inuu ku lug lahaa qaraxyada ka dhacay magaalada Dhuusamareeb isla markaasna laamaha amnigu iminka ay baaritaan ku hayaan xabsigana loo dhaadhiciyay. waxa ka jira shakhs la garan waayo oo qabtay xilliga lagu hayo baaris baa ku socota hadduu ku lug lahaa qaraxyada qaraxani ka dhacay magaalada Dhuusamareeb ee caasimada dowlad goboleedka Galmudug iyo midka kale oo laamaha amniga Galmudug sheegeen inay fashiliyeen ayaa ku soo aaday xilli magaalada Dhuusamareeb ay ku sugan yihiin ra'iisul wasaaraha Soomaaliya iyo sidoo kale taliyaasha ciidamada qalabka sida ee dowladda Soomaaliya.